السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya waxa looga reebo Soomaalida kambaniyada waaweyn ee ay teknoolajiyada tababarada iyo maalgelinta ugu tala galeen dalka Afrika. Maxaa looga reebay Soomaalida sidee bay ugu hortagi karaan ama uga qayb qaadan karaan arrinta. Sida ogtihiin Soomaalida waxa lagu qiyaasay in ka badan 3 milyan in ay yihiin Facebook users kuwaasoo ah 13% انت استعماشه marka hadii aad service isticmaashid ama shaqo ama service ama yani company aad isticmaasho shaqadiisa waxa tahay customer haday aad tahayna waxa ugu leedahay xaq in aad ka qayb qaadato wax aliyaal wixii profit oo ay siinayaan customerskooda. maxaa dhacay marka kambaniyada sida la socotaan AWS oo Amazon ah, Microsoft, Google, OpenAI iyo Llama oo ah Facebook ayda ay soo saarto ayaa waxay ugu tala galeen sida documentigan hadda idinka tusinayo halkan barnaamij lagu horumarinayo mustaqbalka Afrika dadka dhalinyarada lagu siinayo scholarships, mentorship in la hago tababaro free ah oo AI machine learning la barayo. marka waxa elimination lagu suubiyay Somali Peninsula ama geeska Afrika hadii aan dhihi lahaa waxa ku jirta Ethiopia iyo Djibouti. Kenya fursadaas way ka qayb qaadataa si bareero ah ayay Afrika muxuu ahaa iyagoo investment ku suubinaya mar walba laga reebaa Soomaalida. marka waxa sidee baan ugu hortagi karnaa waxaan ugu hortagi karnaa in aad fikirkan inta qaadataan aad la carartaan ma aha. waqti dheer ayaa iga baxay research aqoonna waa u leeyahay waxaan aan ku dhex jiro oo AI machine learning ka ah iyo maalgelinteeda iyo shirkadahan oo dhan. waa in muxuu ahaa aan profile-ka idin siin doono ama flyer-ka idin siin doono kulligiin aad share gareysaan isla markaasna aad copy ku dhifataan xarfaha Ingiriiska aan kusoo qori doono postigan aad wada saarataan especially Facebook because haddeertaan Amazon mar hore ayuu ahaa sanadkii hore sanadkani 2025 ilaa 2027 mashaariicdi waa furan yihiin. marka hal qof oo dhalinyaro ah oo dalkii ku nool Soomaali oo dhan ma dalban karaan because elimination ayaa lagu suubiy xaqna ma aha. marka waa in inaan ka protesting ka suubinaa oo qof walba oo daneynaya ma aha qurbaha hadaa joogto ilmahaaga ay waxbarasho haystaan in aan ilowno mustaqbalka dhalinyarada fursadaha u baahan hooyooyin ku cadiban Afrika iyo dalkii oo caruurtooda u baahan mustaqbal cunugi dadaalayo yani fursadaas waa inuu xaq u helaa waana inaad ka qayb qaadataa meel kasta joogto dalka joog ama diaspora joog. formkan ayaa waxa flyerkan idin sameeyay ayaa la qaadanaysaan waxaan ku videogan